warbixin cusub oo baaqa ay soo saartay qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ay Soomaaliya wajahayso xaalad abaar ah oo aad u daran. Hay'adaha samafalka ayaa waxa ay toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqeen qorshe gurmad abaarahaasi wax looga qabanayo, waxaana hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo dhaqaale aan soo daahin si looga baaqsado in xaaladda bini'aadanimada Soomaaliya ay ka sii darto. Qorshuhu waxa uu dalbanayaa adduun lacageed gaaraya 710 milyan oo caawimaad naf badbaadin ah si loola gaaro dad tiradooda lagu qiyaasay 4.5 milyan oo Soomaali ah, kuwaasi oo ay saameyn aan wanaagsanayn ay ku yeesheen abaarihii ku dhiftay gudaha Soomaaliya muddadii u dhaxaysay bilihii March iyo December ee sanadkan. Xilli roobaadkii guga ayaa bilihii Abriil ilaa iyo June aan si wanaagsan uga diin Soomaaliya, arrintan oo ka dhigan iyadoo xilli roobaadkii labaad aan wanaagsanayn oo ka da'ay dalka xilli ay weli Soomaaliya ku jirto marxalad aan wanaagsanayn ee kasoo kabashada abaarihii ku dhiftay sanadihii 2016 ilaa 17 markii laga reebo gugii sanadkii 2018. Xilli roobaad walba waxa uu ahaa celcelis ahaan mid ka hooseeya intii la heli jiray ilaa iyo sanadkii 2015. Roob-yaradaasi waxa ay sababtay in ay dadku ka soo kaban waayaan dhibaatooyinkii gaaray roob-yaradii guga. Sanadkan 2019 waxa uu noqday sanadkii saddexaad ee uu liitay taariikhda Soomaaliya ilaa iyo sanadihii 80-meedyadii. Arrintani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelatay dalagga beeraha iyo sidoo kale taranka xoolaha. Tirada dadka ku sugan xaaladda degdega ah ee cunto yarida waxaa laga cabsi qabaa in ay gaaraan 2.2 milyan bisha Julaayo. Tiradaasi waxa ay 40% ka sareysaa halkii ay joogeen bishii Janaayo ee sanadkani. Nafaqo-darrada iyo cudurrada ka dhashay dadka abaaruhu ay salkiciyeen ayaa cirka isku sii sireeraya meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Xaaladda abaarta Soomaaliya waa mid ka sii daraysa, waxayna u muuqataa mid ka soo hormartay xilligii la arki jiray marka dib loo eego 10 sano ee la soo dhaafay. Soomaaliya waxa ay ku sugan tahay xaalad degdeg ah. Haddii la helo dhaqaale ku filan, waxaa dib loo hawlgelin karaa farsamooyinkii looga hortagi lahaa macaluushii ku dhifatay sanadkii 2017, ayuu yiri George Conway oo ah kusimaha xiriiriyaha arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya. Anagoo dawladda Soomaaliyeed kala shaqeynayna sidii loo dhisi lahaa adkeysiga dadka si loola tacaalo waxyaabaha sababa mashaqooyinka soo laalaabtay, ayaa haddana waxaa loo baahan yahay in cid waliba ay taageero ka geysato sida deeq-bixiyaasha, ganacsatada Soomaalida gudaha iyo dadka qurba joogta ahba sidii dadkaasi looga badbaadin lahaa abaaraha daran, ayuu raaciyay. Saameynta abaaruhu waxa ay khatar gelin karaan guulihii la gaaray sanadihii 2018. In sare loo qaado howlaha gargaarka ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo saameynta ayaa lagu yiri warbixintan cusub ee qaramada midoobay ay ka soo saartay dhibaatooyinka ba'an ay sheegtay inay ka taagan tahay dalka Soomaaliya.